doorashooyinkii Itoobiya ee dib u dhacay bishii August ee sanadkii 2020 sababna looga dhigay cudurka safmarka ee COVID-19 ayaa keenay inuu soo shaacbaxo khilaafkii u dhaxeeyay Abiy Ahmed iyo TPLF oo sidoo kale ka biyadiidsanaa inay soo gacan galiyaan madaxii hore sirdoonka Itoobiya Getachew Asafe oo loo haystay xadgudubyo ka dhanka xuquuqda aadamaha. bishii November ee sanadkaasi ayaa Abiy Ahmed waxa uu qaaday dagaal ka dhana TPLF kadib markii uu ku eedeeyay inay weerareen xiriir ay ciidamadu ku lahaayeen gobolka waqooyi ee dalkaasi. muddo yar kadib ciidamada ayaa la wareegay guud ahaan gobolka waxaana ku dhintay kumanaan qof iyadoo malaayiin qof oo kalena ay noqdeen qaxoonti iyo barakacayaal. bishii June ee sanadkan ayaa TPLF waxay la wareegeen guud ahaan gobolka Tigray hase ahaatee intaasi kuma joogsan ee waxay qabsadeen dhul badan oo ka tirsan deegaanada la dariska ee Axmaarada iyo Canfarta ilaa ay ku hanjabeen bishii November ee sanadkani inay qabsanayaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda kadib markii ay la wareegeen magaalooyinka istiraatiijiga ee Dise iyo Kombolcha. 45 jirka darajada ciidamada ka gaaray gaashaanla sare haystana shahaadada sare PhD-da iyo bilada nabadda adduunka Nobel Peace Prize ayaa tuutaha militariga xidhay dabayaaqadii bishii hore November isagoo tagay safka hore dagaalka waxaana niyad helay ciidamadiisa oo si adag ula faltamay TPLF dagaal adagna kadib kaga saaray deegaanadii ay qabsadeen ee Canfarta iyo Axmaarada ilaa dib loogu celiyay gobolkoodii ay ka soo duuleen oo wali ay ku socdaan duqaymo cirka ay wadaan diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya. laakiin waxa xaaladda wax ka bedelay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee wadamada Turkiga, Shiinaha iyo Iiraan iyo waliba taageerada hagar la'aanta ee wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta iyadoo sidoo kale la sheegay dawladda Ruushku inay iyana taageersan tahay dawladda dhexe ee Itoobiya. Tigray oo sheegay in sababo la xidhiidha dib u gurasho istiraatiijiyadeed ay dib ugu laabteen deegaamadooda kana baxeen dhulkii ay qabsadeen ayaa waxa la sheegay in jabka gaadhay ay sabab u ahaayeen qiimahan kala joogsiga lahayn ay ku hayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Abiy Ahmed oo ku guuleystay dagaalkii uu ka galay deegaanada Canfarta iyo Axmaarada ayaa maalintii dooraad ahayd waxa uu dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa isagoo khadka taleefanka kula hadlay hogaamiyayaasha ugu awoodda badan dalalka Afrika dhammaan kuwa geeska Afrika xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Maxamed Faki. Abiy ayaa waxa uu abuuray dood ahayd sababta dalalka Afrika ee ka kooban 54 wadan ay kursi joogto ah ugu yeelan waayeen kuraasta rigliga ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Abiy Ahmed Cali waxa uu ku dhashay magaalo yar oo la yiraahdo Beeshaasha oo ku taala Itoobiya 15kii bishii August ee sanadkii 1976. Abiy waxa uu ahaa nin Muslim oo Oromo hooyadii Taseta Wolda waxay ahayd Masiixiyad labadiisa waalidba waxay ka soo jeedeen qoomiyadda Oromada laakiin dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in hooyadii ay ka soo jeeday deegaanka Axmaarada. Abiy waxa uu ku hadli jiray luqadda Oromada laakiin hooyadii waxa si qumaati ay ugu jirtay afafka Oromada iyo Axmaarada. waraysi uu siiyay Abiy Ahmed telefishanka ku hadla afka Oromada ee la yiraahdo Oromo Broadcasting Network ayuu sheegay in labadiisa waalidba ay ahaayeen Oromo. waa ilmihii 13aad ee uu dhalay Ahmed Cali oo guursaday 4 dumar. magaciisa rasmiga ah waxa uu ahaa Abiyo oo macnihiisu yahay kacaan. dadka taariikhda Itoobiya wax ka qora ayaa waxay sababta ay ku sheegeen in caruurtii dhalatay markii Mengistu Haile Mariam uu qabsaday talada Itoobiya afgambiyay boqorkii wadankaasi ka tarinayay Haile Selassie in wiilashii waqtigaasi dhashay loo bixin jiray Abiyot. waxa uu jeclaa waxbarashada isagoo dhalinyarada kalena ku dhiiri gelin jiray inay wax bartaan. waxa uu qabaa oo xaas u ah Sinaash Teju oo ka soo jeeda magaalada Gondar ee deegaanka Axmaarada iyagoo isguursaday markii labadooduba ay ka tirsanayeen ciidamada difaaca ee Itoobiya waxaana isu dhaleen 3 hablood. waxa kaloo jira wiil ay korsadeen. Abiy Ahmed waxa uu ku hadlaa afafka Oromada, Axmaarada, Tigrinya ama Tigray iyo Ingiriisiga. Abiy oo aabihii uu ahaa Muslim ayaa qoyskiisu waxa si joogto ah ay u tagaan kiniisadda isaga qudhiisa ayaa waqtiyada qaar ka jeediya khudbado wacyigelina. xaaskiisa Sinaash ayaa iyana ka heesta ama qasiida ka qaada kiniisadda isagoo ka tirsan ciidamada ayaa shahaadada koowaad waxa uu ka diyaariyay computer engineering
oo uu ka qaatay macadka Microlink Information Technology ee magaalada Addis Ababa sanadkii 2009. shahaadada labaad ee hogaaminta ayaa waxa uu ka qaatay jaamacadda Greenwich ee magaalada London sanadkii 2011. waxa kale oo uu haystaa shahaadada labaad oo iyana uu ka qaatay maamulka ganacsiga kana diyaariyay jaamacadda Ashland sanadkii 2013. shahaadada sare PhD-da ayuu ka qaatay macadka amniga iyo barashada nabadda ee jaamacadda Addis Ababa sanadkii 2017. isagoo 14 jir ayuu sanadkii 1991 waxa uu ku biiray halgankii ka dhanka ahaa nidaamkii shuuciga ahaa ee Mengistu Haile Mariam. markii walaalkii uu ka weynaa uu dhintay ayaa isna waxa uu ahaa askari caruur oo ka tirsanaa ururkii Oromada ee dagaalka ku jiray ee ODB. ururkaasi ayaa tiro yar oo dagaaliyahano oo lagu qiyaasay 200 waxa uu ku lahaa jabhadii isbahaystay oo ka koobnaa 100,000 oo dagaaliyahan. Tigraygu waxay lahaayeen 90,000 oo askari. markii uu dhexgalay Tigrayga ayaa waxa uu si fiican u bartay afka ay ku hadlaan ee Tigreenya. markii la riday xukunkii dargiga ayaa waxa uu tababar ku qaatay xirada guutada Asefe Brigade ee galbeedka gobolka Wollega. koorintii aanu noqon askari kamid ah ciidamada difaaca ee Itoobbiya sanadkii 1993 waxa uu ka soo shaqeeyay waaxdii sirdoonka ee ciidamada sanadkii 1995 kadib xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda ee 1994 ayaa waxa uu ka mid noqday howlgalkii qaramada midoobay iyadoo la geeyay magaalada caasimadda ee Kigali. dagaalkii dhexmaray Itoobiya iyo Eritrea sanadii 1998 iyo 2000 waxa uu hogaamiyay koox sirdoon ahayd oo soo xaqiijiyay goobihii ay ku sugnaayeen ciidamada Eritrea. isagoo sarkaal ka tirsan ciidamada ayuu ku laabtay magaaladii uu ku dhashay ee Beeshaasha waxaana xal uu helay dagaal diimeed oo u dhaxeeyay muslimiinta iyo masiixiyiinta oo sababay dhimasho. sanada kadibna waxa loo doortay mudana ka tirsan baarlamaanka. Abiy ayaa waxa uu siyaasadda kaga biiray xisbiga dimuqraadiga Oromada ee OBD oo xukumayay deegaankaasi ilaa sanadkii 1991. xisbigaasi ayaa waxa uu ka mid ahaa afartii xisbi ee ku bohoobay isbahaysigii maamulayay Itoobiya ee EBRDF sanadkii 2010. ayaa waxa uu noqday xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Itoobiya waxaana laga soo doortay degmada Agaro. xilal kala duwan ayaa looga magacaabay dawladda dhexe ee Itoobiya. sanadkii 2015 ayuu noqday wasiirka sayniska iyo tiknoolajiyadda Itoobiya xilkaas oo uu hayay muddo 12 bilooda. kadibna waxa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Oromada. intii xilka uu hayay waxa la sheegay inuu dib u dejin u sameeyay malaayiin qof oo Oromo oo ku barakacay colaadii Soomaalida iyo Oromada dhexmartay sanadkii 2017. kadib muddo sanada uu soconayay kacdoon dadweyne ayaa 15 bishii February ee sanadkii 2018 waxay iscasilay ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn. afartii xisbi ee uu ka koobnaa isbahaysigii EBRDF ee Tigrayga Axmaarada Oromada iyo qoomiyadaha shucuubta koonfureed ayaa waxay bilaabeen inay ku tartamaan kursiga banaanaaday. xisbiga Oromada ayaa waxay soo taagay Lima Magarse madaxweynihii deegaanka iyo ku-xigeenkiisii Abiy Ahmed. Lima oo ahayd in loo doorto murashax ayaa waxa uu ka soo bixi waayay shuruudihii looga baahnaa oo ay ka mid ahayd inuu yahay mudana ka tirsan baarlamaanka federaalka. Abiy oo ka faa'iideystay fursadda ayaa waxa uu ahaa xildhibaan heer federaal ilaa sanadkii 2010 waxaana uu noqday gudoomiyaha xisbiga OBD iyo waliba murashaxii u tartamayay jagada ra'iisul wasaarenimo. waxaana uu la tartamay rag ay ka mid ahaayeen Debretsion Gabramakail hogaamiyaha TPLF iyo Demeke Mekanon oo ka socday xisbiga Axmaarada. kulan ay isugu yimaadeen 180 xubnood ee uu ka koobnaa isbahaysigii EBRDF 17 bishii March ee sanadkaasi waxa tanaasulay Demeke Mekanon oo halis ku ahaa damaca Abiy. waxaana 2 bishii Abriil ee sanadkii 2018 cod aqlabiyada ra'iisul wasaare loogu doortay Abiy Ahmed iyadoo Mekanon uu noqday ra'iisul wasaare ku xigeen.
abiy axmed waxa uu bilaabay inuu soo afjaro colaadii u dhaxaysay wadamada Eritrea iyo Itoobiya ay ku dhinteen in ka badan 100,000 oo qof isagoo booqday isla sanadkaasi magaalada Asmara waxaana uu ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay ka baxayaan magaalada lagu muransanaa ee Baarme oo qaramada midoobay ay u xukuntay Eritrea sanadkii 2002 liiska argagixisada ayuu ka saaray ururo dawladda dagaal kula jiray oo ka mid ahaa ururka Soomaalida ee ONLF waxaana si weyn ugu ololeeyay isdhexgalka gobolka Geeska Afrika sanadkii 2019 ayuu ku guuleystay bilada nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize ee lagu bixiyo magaalada Oslo ee wadanka Norway waxaana lagu siiyay soo afjaridii colaadii Eritrea iyo Itoobiya maxaabiistii uu ka sii daayay xabsiyada ee uu xidhnaa nidaamkii Tigraygu awoodda badan ay ku lahaayeen